ku soo dhowaada qaybtii labaad ee taxanaha barnaamijka taariikheed ee dadka Soomaalida iyo dhulkooda xeebaha. Qarniyadii dhexe samaynta qaab-dhismeedka siyaasadeed ee reer qoysku wuxuu bilaabay hab-dhismeed weji cusub. Waa markii qoysaskii faraha badnaa ee muslimiinta lagu dhibaateyn jiray meelo badan oo kale oo Carabta ah ay si wada jira ugu soo qaxeen xuduudka Soomaaliya. Soomaalida qaninimadooda habqaraabaysiga ayaa waxay ka dhigtay kuwo awood leh. Guurkii dadka deegaanka waxay ka soo dhex saareen xidhiidh dhaqaale oo faa'iido leh. Intii lagu guda jiray 1300-meeyadii, caasimadii mustaqbalka u diyaarsanayd ee Muqdisho waxay caan ku noqotay magaca ah magaalada xisbiga ama muraayadii xeebta, waxayna ahaatay meel ay aad u jecel yihiin badmaaxinta Carbeed. Soomaaliya oo deegaan muslima ayaa qarniyo badan xiriir saaxiibtinimo la lahayd dalka ay dariska yihiin ee Masiixiga ee Ethiopia. Inkasta oo jihaadku ka socday meel kasta oo dunida Carabta ka mid ah, haddana waqtigaas Soomaaliya waxa ay ballan qaaday inaanay weligood weerarin Ethiopia. Xaqiiqda ah in Ethiopia ay leedahay qaar ka mid ah dhulalka dabiiciga caalamka ee badi u samaysan go'doonka buuraha ama qararka kala sarreeya ee ku kallifa bulshada dhulka noocaasa degan inay isku soo fidiyaan qaybaha dhuleed ee siman ee weliba kulaalaya xeebaha ugu dhow. Markaas arrinta awgeed ayaanay noqon xabashida kuwa marna saamaxay inuu hergalo ballanqaadkii Soomaalida ee ahaa inaysan weerarin dalka la dariska ah. Sidaas oo ay tahay, Etoobiyaanku kuma soo dhiiran jirin Soomaalida iyaga oo keligood duulaana, ee waxay badi isku halayn jireen wadamada Masiixiga ee markaa dunida awood ahaan ku leh saameyn weyn. Markasta dowladaha shisheeye waxay u yaqaaneen Soomaalida dad gardarro badan oo si walba oo loo cadaadiyo aan u nuglaan rabitaanka awoodaha ajnabiga. Nasiib darro, sanadkii 1414 ayaa boqor Etoobiyaan ah oo faduul badnaa lana oran jiray Isxaaq Kow waxa uu si awooda ku yimi kursiga boqortooyadiisa, wuxuuna markaa dagaal ku qaaday Soomaaliya iyo Jabuuti oo la darisa. Ololihiisa waa lagu guulaystay, boqorkii Soomaaliyeed ee lagu duulayna waa la dilay. Boqor Isxaaq Ethiopia ayaa markaa guushiisii loo dabaaldegay, waxayna fanaaniintii loogu jeclaa dhulka xabashida goortaas ay u sameeyeen heeso lagu ammaanayay boqor Isxaaq iyo guushiisii uu ka soo gaaray la dagaalankii Soomaalida. Ma ahayn wax badi dhici jiray in xabashi ay guul heerkaasa ka soo gaarto dagaal ay la gashay dad Soomaali ah, laakiin weerarka xabashida oo ahaa mid aanay Soomaalidu markaas filanayn ayaa sababay in Ethiopia dhexdeeda looga heeso magaca Soomaali oo lagu tilmaamayo mid guuldaraystay. Ilaa waqtiyada Soomaalidu waxay ku hoos noolaayeen gumaysiga Ethiopia muddo qarni iyo wax ka badana. Si kasta ha ahaatee, laga bilaabo 1530 oo uu hogaaminayay Soomaalida Imaam Axmed Gurey Allaha u naxariiste, ayay Soomaaliduna ka argoosteen Ethiopia, waxaana bilaabatay dagaalka ama diiwaanka baal taariikh cusub oo ay dunidu ka wada marag noqotay. Axmed Gurey wuxuu ahaa hogaamiye muslim oo Soomaali ah oo iska caabiyey duulaankii Boortaqiiska iyo xabashida ee isku soo bahaystay dhowr duulaan oo ay rabeen inay ku gumeeyaan kuna gumaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool Geeska Afrika. Inkastoo sahankeenna taariikheed xilligan uusan ahayn keliya mid aan kaga sheekaynayno taariikhda halgamahaas weyn, haddana waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobno aan ku soo dhex qaadanno mowduuceennan, waayo Gurey taariikhdiisu waa sheeko weyn oo wax ku biirinaya xiisaba u leh Afrika oo dhan, gaar ahaan inta ku nool bariga Afrika, weliba ay ugu horreyso Soomaalida. Haddaba soo ifbixii hogaamineed ee Gurey waxay Soomaalidu u yeeshay awood iyo karaamo xoog leh, waxayna xabashidii ama Etoobiyaankii ku noqotay ciqaab iyo waayo mugdi ah oo maalmahoodii farxadeed u rogay baroor iyo murugo aan dhammaan. Imaam Axmed Gurey waxa uu kaalin weyn ka qaatay in dalka Ethiopia 4/3 meel la hoos keeno boqortooyadii Soomaaliyeed ee Adal ee muslimiinta u badnayd intii u dhaxaysay 1529 ilaa 1543. Waxaa noo ballanaa qaybta saddexaad ee taxanaha barnaamijkeena.